بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوستي همبو في الشهر ما شاء الله تبارك الله وحائد الله يا هاي ما أنت بوستي في الشهر محك كلمة محس هذا الشهر مالك سحك هذا الشهر تبو صح قلادات كهوينك وحكى لك هذا الشهر صح مرك وحائدين شيء يا inaan qaldanna haddana waxaabana laga abuuri feer qaldan marka waxaa fiican inaan iska sax qaladaadka dowlaa feer qaloocana laga abuuray haddana inaan isa saxno maxaa iska saxeena maxaa iska hadleena inta saxsan wayba saxsan tahay inta qaldan laakiin naag kasto naag adduunka naag lee laga cawaadooya warmaa dib isugu noqono iscaawino oo iska dayno marka waxyaalaha dhibaatada nagu haayo waa gurigeena ilmaheeni soomaali ha ka imaado inta ha ku dhashto wixii dhan af soomaali asalaamu calaykum waraxmatullahi ma jirto ingiriis aa lagula hadlaa naagta ingiriis ku haastay faransiis ku haastay jarmal ku haastay netherland yurubiyaanaaba naqanay dhaqankeeni awoowa dhaqankeeni waxayni hooyadan waxaan soo bartaa ilaaha u naxariista intay u nooshahay allah u dhaaf ma ahan inaan ka faano dhaqankeena ma ahan because dhaqankeeni waa gafnaay ma rabno dhaqan marka aniga af soomaali ku hadli waayo ya oo asigana af soomaaliga ku hadlaa way fiicnaani laakiin anigiyaaba kula hadlooynin be ya anigii af soomaali ku hadlooynin laakiin alxamdulilah ciyaalkayga kii la keenay iyo kaan keenay iyo kii aan ku dhalayba horta bismillaahi maasha allah af soomaali waa ku hadalnay inta kalena waxaan jeclahay in af soomaali ku hadlaa waxaa kaloo ku qaldanahay 300 dirac alaabeen xaflad ambuurka ka gadno kan gadno gadaal soomaali dhibaatada ka taagan maskiina baahan aadan ogeyn sax kan baahan adiga suko weli ma ku fikirtay inaa qof baahan caawis weli ma ku fikirtay haddii aabis caawinayn maxaa qof baahan caawinay gurigaagayba ka shidantahay ya maxay tiri gurigaaga ay ka shidan tahay dhaqan ma hayso wax ma hayso ninkii naagti ilmihii meel aan ku toosannahay male naag ninkeeda iyo ilmahooda isqab ninka iyo naagta isqabaan ilmaha maaragta bismillah okeerkaaba tuur marabe ilmahooda badanaa ma halaabaan single mother ilmahooda halaab single mother ilmaheeda ingiriis iyo netherland iyo arabish iyo adduunka ku hadlaan single mother maxaa kaa dhig ilmaha haddaa jeceshahay markaa dhalays farxadda iyo qiirada iyo adduunka kaa muuqata waa aragtay ilmahaaga farxadda ku dhashay maa kula joogtid ha xumaado ha samaado cunugaagu samir silac guursato 30 karoon aan dhehna absolutely cunugaaga ninkan waxaa loo baahan yahay naagtiisa dee cunta inuu samro oo dhaho way khaldan tahay maxaa qaladka ku gelinaya shalayba waa guursatay maxaa ilmaha u haysan weysay single mother inaa ku hayso maxaa kugu kalifay maxaa kugu kalifay inaa cunugaaga luqadaada iyo dhaqankaaga iyo aadan bari cunugaaga guriga joogo dugsi ageysanay cunugaaga iskoolka saa ula dheelmanaysaa shaqada u ordays quraanka u bar cunugaaga saa ula rooraysa subaxii alla iskoolka u dheysid dhaqankaaga u bar subaxii saa u wadid oo u qaylinaysid 6 u kacee cunugaaga ku bar quraanka 6 kacee ninkaaga ku hayso ma ku haysatid dhaqan ma jiro dhaqankeena awoowe dhaqankeena Soomaaliyeed hooyada iyo aabaha ka dambeeyo hooy
aaw waalidkeena aaw walaalaheen aaw dadkeena aaw male waxaan ka haynaa biskayr ilaahay hana soo hanuuniyo waxyaalaha ugu muhiimsan aan ka hadlaayo waa dhaqankii aan bedelin inta soomaali miyahan leena soomaali waay adaa soomaali ee maxay soomaali u ahaan weyse waddanka hooyada aabbaha miya waxaa lagu yiri kala dadaal gaalka ilaahow inta ilmo laga haysto ka soo fakar semberi ilmaha adduunka waa la qaata alxamdulilah anaka biljam u joognaa biljam weli ma arkin qaladaadkeena aada u yaryahay because waddankan qaladkeena aada u yaryahay sababtoo ilmaheena lama qaato ilmaheena dugsiyada way dhigtaan iskooladooda adduunka laakiin nin inaag isqabo waa ku yar yihiin ninka inaag waa wada single mother boqolkiiba 60 waa ilmo aaboodii hooyadood isla joogaan 40 duurka nooga jirto laa soo celiyo adduunka meel kastay joogaan ilaahay ilmahana af soomaali ha baro cunugaaga markuu af soomaaliga yaqaano gaalka oo la dagaalami karaa oo la waxay karaa diintiisii dhaqankiisii muslimadiisii oo ku socon kara laakiin adigiyaaba af soomaali kula hadloono labadii kelmadoo baratay horta adi perfect ma tahay waxa ma tahay maxaa kula hadlay qofka perfect hadduu yahay dhibaato ma jirto wuu la hadli karaa laakiin maxaa ugula hadlay aawo dhaqankaagii aaway dhaqanka oo waalidkaa kusoo baran ku dhaqdaa maya kooba ninkaa bixisiye markaa ninka bixiso goorma ilmo iyo waalid iyo walaal iyo ehel baahan iyo dad ma xasuusana single mother aabata single mother diriceed basay ka fikirtaa ay gadanayso yaa kaa dambeeya ma jirto riyaa hooyada hadday tahay xataa tan ugu qiimaha hooseysa xataa waa hooyada hooyo qiimaheeda ma hooseeyo hooyo semberi waa hooyo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri hooyo 3 mar maxaa ka haysaa maxaase ka ogtahay waalidka waxaa lagu dhahay ninta cunug hooyadiis noosha intay hooyadeen noosha nasiibooba leeyahay hooyadaa doodka ku qaado hadday dhergantahay hadday baahan tahay way kuu baahan tahay hadday dhergan tahay iyo hadday baahan tahay hooyada waa hooyada intay u noosha allaha u dhaafo anigun hooyadii aabbe allah raxma raaximiin nafante ducana waa nooga dhinteen ilaahay khayr siiyo laakiin waxaa idin dhihi lahay single motherka uu batay oo tiktok ka buuxo diraca 300 ka bixinaysa Soomaaliya looga baahan yahay Soomaali waa waddankaagii waa dadkaagii waa ehelkaagii u ducee inuu waddankeena dawladeena dawlad fiican noo sii noqoto adigaaba ogoleen oo qofku wax suubsadaba goorma dawlad fiican noqon adigaaba ogoleen oo single mother oo cunugaaga oo Soomaaliga bari Soomaali markuu tago muxuu sheegaa laakiin marka aniga aan dhaho af Soomaali ku hadal oon kula hadlo oon kula qoslo oon kula dheelo gurigaaga markii lagu dhaho gurigiin maxaa ku hadashay af Soomaali ma dhehayst ilaa cunugi af Soomaali ku hadlo waxyaalaha ilmaha loo qaato waxaa ka mid waxaan leeyahay reer Yurub adduunka meel kastoo la joogo Soomaali meeshay joogto cunugaaga ku dadaal af Soomaali biri markuu gaalka ka qaadanayo asoo yaro dhago la kasi wax ka uma soo bixin inaa ilmaheena gaalada qaataan ilaahu naga qabo intii laga haystan Allah uga soo qaado laakiin ka fikir single mother oo awada waa single mother oo wili qaldan single mother fiican oo ciyaalkooda kursana way jiraan single mother qaldan waxa uu sheegaa ya ishak single mother qaldan adaa qaldan qalad ku sax mindi ku taag na ilmahaaga u sabir ilmahaaga korso meeshaan waxaa habeenka sidan kugu soo fadhiyo waa maama nabi wacdiga waa walaalkaa kala gaarsii ha dhageysto u dir ku caawi dad waaweyn wax loo sheegaa meesha ma jooga laakiin waxa idinka tambadisay oo si amiidan ila siinay ilmaha meesha ku dhashay labada kuma ku qaadanaysiina waxa moodeen inay wax fiican tahay ma aha lacag fiican ma aha lacag ku duleynayso
xoogaagaa ku shaqaysatay cunugaaga la tacaal saad ku haysan laheyd ood single mother aadan ku noqon lahayn ka fikir habeenii maalintaa single mother taho indhaha cadaynays war wehelaa u baahan tahay cunug wax kula haay u baahan tahay iskoolka wax kula geeya u baahan tahay labadiina qofka soo hormara ilmaha haay markaa guriga isugu timaadiina buugga af soomaaliga la soo bax af soomaali cunugan ku hadlayna cunto masiina go away waa baranaa mama wuu kula saxsan yahay miya inaa cunugaaga af soomaali la-aan dhigto cunug yurub jooga af soomaali yaqaan waa yarta lahooyo afrika iyo aasiya cunug soomaali jooga unbaa wax yaqaan ilmaheena soomaaliya qaarka jira xataa jaamacadda ka baxaan ma ku shaqaysan karaan waxbarashadeena waxay noqotay waddankeena aan u duceyno ilaahay ka cabsado ciyaalkeena beri markuu af soomaaliga iyo luqadda waddanka uu isku barto wuxuu gaaraa heer oo waddankiisa ka shaqaysto sax wala laa